kusoo janaalka ana Zahir Maxamed wali waxa noo socdo qaybteeni visualizationka iyo cashirkeena barashada SPSS cashirkeena maanta waxa qaadan doonaa cashirkeena 13aad waxa kaga hadli doonaa histogram graafka qaabka loo sameeyo marka waxa tusaale ahaan soo qaadan doonaa household income-ka si aan u fiirino qaabka isku beddelaa bad kasto laakiin macnaha sida ognahay graphics-ka wuxuu leeyahay mid kasto wuxuu leeyahay variable ku soo baxa ama measurement gooni u ah tusaalahan hadda markii laga hadlaa histogramka badana wuxuu ku fiican yahay mataqaana scale variableska oo more mataqaana continuous ah oo adiga tiro oo kala duwan soo baxay laakiin markii ay tahay nominal waxa ku garanaysa calaamadan ay leedahay badana oo mataqaana categorical ama nominal soo taqaano halka scale uu leeyahay mataqaana geedkan yar oo mastarada marka badana wuxuu ku fiican yahay inaa isticmaasho mataqaana inaa isticmaasho oo mastarada leh sidaas maadaama ay scale yihiin oo sheegaan wax continuous ah marka variable badana histogram continuous uu ku fiican yahay marka tusaalahan waxa uu qaadan doonaa household income-ka kadib waxa dhihi doonaa mataqaana okay aan dib ugu soo celiyo waxa tagana graph kadib waxa tagi doonaa histogram ka tagno kadib variableska xagana soo dooranaysa kadib waxa dhina okay and dhahno histogram-kan waa kana teeda kale wuxuu ku siinaa mean ku siinaa oo ah average ahaan waxa waaye $514 waaye household income-ka celis ahaan kala fiiriyo deviation-kana waxa waaye 265 number-kana waxa waaye 100 observation waaye marka badana ada aragto mean standard deviation waxay cadeynaysaa in wuxuu ku fiican tahay in scale uu yahay variable-ka ama continuous marka sida kii hore camal waaye oo bar chart-iga wax kaga duwano waxa u baahan tahay inaad edit ku sameysid kaliya waxa double click ah sameynaysaa qaybta hore waxa iloobay in waxaan iga iloobay mataqaana ina qaybaha dambe laakiin almost the same waaye wax farq weyn ma jiro laakiin qaybtan oo badana mataqaana oo histogramka wuxuu leeyahay bell shape marka bell shape-kaas uu leeyahay daarat in histogram bell shape-ka marka bell shape-ka wax kale ma sheegaa normal distribution ku sheegaa normal distribution waxa lahaa macnaha habka oo mataqaana sambalkaaga population-ka u matalayo macnaha population-ka waxa waaye tusaalahan anaga markasta statistic aan joogno waxa jiro parameter iyo statistic aan jiro marka parameter waxa waaye waxyaalaha oo asalka ah oo originalka sida dadka population parameter waaye laakiin statistic waxa waaye just sample waaye marka ina sambalkaaga oo just u dhow yahay mataqaana population-ka ayaa lagu fiiriyaa marka hadda almost waxay cadeynaysaa in bell shape-keena uu soo hoosgalaa inkastoo weli ay jiraan outside outlier ay jirto laakiinse badanaa bell shape wuxuu ku sheegaa mataqaana normality wax la xiriiro marka haddaad jeceshahay badanaa statistic data waxa u baahan tahay inaad barato mataqaana limit theorem inaad barato u baahan tahay central limit theorem kaas inaad u baahan tahay waxaa kaloo jiro mataqaana theories fara badan jiro oo ka hadlayo normal distribution-ka iyo population-ka wax la xiriiro marka just wuxuu dheeryahay qaybtan bell shape-ka uu dheeryahay haddaad rabto ku dirsan kartaa haddaad rabto ka qaadi kartaa teeda kale waxaa jiro qaybahan dambe waxaa kusoo dari kartaa mataqaana straight forward-ka macnaha qaabka isku saameynayo macnaha sida outlier-ka oo kale qaabka uu saameynayo uu taabanayo marka haddaa u baahan tahay inaad waxyaalahaas kale kusoo dari kartaa oo waxyaalahan waxay gooni u tahay bis histogramka gooni u yahay mataqaana haddaa rabto waa ka qaadi kartaa oo bell shape waa ka qaadi kartaa haddaa rabto waa ku dari kartaa marka waxa waaye olkaas nooc uu leeyahay marka waxa waaye saas waa sameyn kartaa marka intaan kale waa ka sameyn yihiin oo sida bar chart oo kale cashirkeeni 11aad aan kusoo aragnay mataqaana marka almost waxa waaye same waaye oo muu baahno inaa ka fikirto kii wixii hore isticmaali jirnay marka inaa ku laabto marka histogramka saas loo sameeyaa
mataqaanaa waana useful waaye haddaa u baahan tahay inaa wax ka ogaato laakiin haddii aad rabto inaa mataqaanaa aad rabto inaa isticmaasho kale variable oo nominal ah waa isticmaali kartaa laakiinse waxay ku xiran tahay qaabka uu noqon doono tusaale ahaan tijaabino tusaale ahaan kale level of education aan dhahno marka fiiriso sida wuxuu noqonaa bar chart uu noqonaa jeeda macnaha macno weyn ma sameynayo marka badanaa histogram wuxuu ku fiican yahay scale inuu yahay waxa waaye inuu yahay tiro oo continuous ah oo badanaa waana waxaan kaga soo hadlaa casharadii koowaad labaad afila measurement teamka ka soo hadlay marka xaggaas ka ogaan kartaa qaabka ku haboon graph kasta waxa waxba ku haboon wixii ku haboon isticmaalso marka casharkeen inta soo yahay qaybta histogramka bilis hadii aad wax ka barata ka faa'iido please like no sar videogeena asxaabta la share garay inta danaynaysa inay barta SPSS casharkeen xiga waxa kaga hadli doonaa pie chart waana qaybta ugu dambaysa oo visualizationka visualizationka uu badan yahay dhowr nooc jiro mataqaanaa oo wada box plot ko kala wajira laakiin badanaa outliers ko sheegaa laakiin si badanaa anaga markii loo fiiriyo context kan baan isticmaalo markii thesis iyo markaas bayna laakiin qofkii rabo uu isticmaali karaa laakiin aniga waxaan dhahay saddexdan ugu muhiimsan ka hadal doonaa marka casharkeen xiga waxa ku baran doonaa pie chart marka casharkeen xiga saaka doona insha Allah ma santiin asalaam